waxaa la mahadiisa in acmaashii xajka ee sanadkii dhammaaday ay si wanaagsan inoogu soo dhammaadeen alxamdulilah. sanadkan wasaaradda iyo guud ahaan dowladda oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane dr xasan sheekh maxamuud iyo anigaba waxaan xil weyn iska saarnay hagaajinta amuuraha xajka iyo in la hormariyo ishana lagu hayo howlaha xaajiga Soomaaliyeed iyo sidii loogu adeegayo. tallaabadii ugu horeysay ee aan qaadnay waxay ahayd inaan wax iska weydiino kharashaadka laga qaado qofka xaajiga ah ee Soomaaliyeed ee loogu adeegayo oo ay noola muuqatay in ay wax badan ka sarreyso marka lala eego dowladaha gobolka. waxaan shaki ku jirin in weli sida Mukhtaar sheegay Sheekh Mukhtaar sicirku weli waxoogaa u sarreeyo, laakiin waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis kana shaqayn doonaa sidii xaajiga Soomaaliyeed looga sii yarayn lahaa kharashka ku baxa inta xajkan ku baxday. mar kasta waxaa la fiiriyaa marka wax la qiimeynayo wixii soo jiri jiray ayaa laga bilaabaa, kadib baa la eegaa meesha la tegay, isbedelkuna meeshaas ayuu ka muuqanayaa. meeshaasaa marka ama ammaani ka soo bixi ama ay dhaliili ka soo baxaysaa. marka in hal qof loo safe gareeyo in ka badan $700 waxay la tahay arrin fudud ma ahayn, arrin sahlanna maysan ahayn. walaalayaal, tallaabada labaad ee aan qaadnay waxay ahayd in aan si aan cabashada xajka ee laga tabanaya aan wax uga qabanno. waxay ahayd in aan focus garayno nooca iyo sida ay u ekaanayso khidmada loo qabanayo qofka xaajiga Soomaaliyeed. sidoo kale waxaan go'aaminay in wasaaradda loo madax banneeyo hawsha xajka. waxaan ka mamnuucnay in wasaaradda ay barashar gareeyaan siyaasiyiin iyo ganacsato midkoodna. waxaan u malaynayaa annaga iyo wasiirkaba annagaa ka badnayn inta bareesharka nala saaray, laakiin waxaan isku daynay in aan tan meel iska dhigno, aan wasiirka meel la wada joogo, ganacsatada Soomaaliyeed ay wada joogaan, si publicana madaxweynuhu dee haddaba aad maqlayseen inaan sheegnoon dhahno sanadkan adi ha ku eersato wasiirow, meeshaas adigaa mas-uulka ah. annagana taageero mooye inaadan aan xagganaga kaa soo gaarayn wax bareeshar. marka hadda wuxuu markhaati gashaday war wax lacag ma laydinka qaaday, war wax laaluusha ma bixisteen, laakiin annaguna asagaan markhaati gashanayna haddii wax bareeshara nagala kulmay taageero mooye. waxaan rabaa inaan halkan ka ishaaro dadka Soomaaliyeedna aan u sheego xajku waa rukn min arkaan alislaam. in kasta oo lagu dhex ganacsan karo, haddana waxa weeye mararka qaarkood waxaa la rabaa in ay kontaroosho dadka ganacsanaya akhlaaqda islaamku inay kontarooshaa la rabaa, ee uusan greedy noqon shilinku faa'iidayo inuusan daba carar ayaa loo baahan yahay. haddii ay noqoto ujeedku wax kastaba xumee, xaajiga cuntadiisa ha ka fakerin, jiifkiisa ha ka fakerin, gaadiidkiisa ha ka fakerin. almuhim waa inaad faa'iido
haddii uu noqdo mawsim jeebasha la buuxiyo oo aan ku xisaabtanayn inuu jeebasha buuxsano inaan uba aragba mawsim cibaada inaan u arag waxaan ganacsigeenna far baa ku godan waxaan ballan qaadnay sanadka xajkaas inuu noqonayo hab cadaalad ah in alla intaan karno waxaan u malaynayaa tira ka 3 jeer inaan tagay wasaaradda meeshay ay ku shaqeynayeen xilligaas kooban intaasna waxaan adkeenaynay in uu xajkaasi uu noqdo xaj xalaal ah oo dadka Soomaaliyeed masaakiinta ah ee soo xajinaya aan lagu diiran waxay la tahay haddaan rabno dee inaan horu socono waxaa la rabaa in la dhiiri geliyo la ammaano wixii fiican ay qabsoomay marka waxaan dhiiri gelinaynaa oon ammaanaynaa wasiirka laga bilaabo iyo dhammaan intii ka shaqaysay ee progresskan fiican samaysay imaadsiin khayr allah siiyo dadaal fiican bay sameeyeen laakiin waxaa la hubaa inay dhaliilo jiraan waxaa la hubaa inay cabasho jirto way jirtaa cabashaa jirta dhaliilaa jira marka wasiir haddaba laga bilaabo in hawlaha wax alla wixii dhaliilaha waxaa rabnaa in la soco sanadkan waxyaabaha wax laga sheegtay dadku dhan ka sheeganaya waxaa ka mid ah basaska arrinta basaska shirkado wasiirku waa noo warramay shirkado ayaa khalad galay cid kasta kuwii lacagta faraha badan qaaday kuwii qaladka galay black list in la geliyo dib dambe xajin inuu taabano bacda black list baa la gelinayaa report baa laga keenayaa qof ayaga ka mida mar dambe intaan joogno waa inuusan xajkaas soo istaagin ayaa la rabaa shirkadihii sharafta lahaa ee ka shaqeeyey ee si ballankay galeen oofiyey awfuu bilcuquud dadkii ballankii iyo wixii lagula heshiiyey sameeyey ee ka soo baxay way ammaanan yihiin jaa-iso in la siiyo oo weliba loo sii dadaalo wayna ku mahadsan yihiin